been badan oo waxaa jirta laga buuxiyay calooshaada mahma waxa aad samayso isma bedesho dabcan cunto nadiifana waad cuntaa jimkana si daily aad u tagtaa I know orodka iyo cardio la sameeyo agtaada kala joogti ma lahan laakiin bedelka aad baruur tiriri lahayd bedelka caloosha ee ka yaraan lahayd dabcan maxaa dhaca baruurtu waxay ku sii aruuraysaa caloosha iyo meelo aadan adigu ku qanacsaneen sababta aan kula qaybsado marka maanta kaliya kuma siin doono sidii aad halka kama dambayska ah ku gaari lahayd iyo aamin waxaad dhihi doontaa videogan 2 sano 3 sano ka hor inuu isoo gaaro iyo ku macaan badnaan lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalka coach Sabriye dabcan waxaan ahay fitness coach waxaan ahay nutrition specialist halkan waxaan uga hadalnaa inta badan caafimaadkaaga iyo sidoo kaleete jirkaaga sidaad u bedeli lahayd wax badan kaama rabo nagu soo biir nala faa'iideyso 5 bil ee sanadka ka dhiman insha Allah taala faa'iido joogto ah qaado dhamaadka muuqaalkan waxaad heli doontaa hadii Ilaahay yiraahdo qorsho oo aad hadda kadib caafimaadkaaga ku ilaalinaysid yes qorsho oo aad gaajada iskaga ilaalinayso oo miisaanka iska ridaayo muruqa qurux badan dhisanaya 30 maalin cunto free ah cunto sixid free ah isbedel rasmi ahna aad ku gaarayso dabcan videogan soo daawo commentigiisana akhri 3 ilaa 4 kiilo isbuuc 3 aan ka joognaa dadkii daawaday cuntada freegana la degay intaas ka dhacday ha iga ordin videogan iyo aamin waxaad dhihi doontaa 2 sano ka hor aan rabay inuu isoo gaaro step ugu hore marka waxaan rabaa inaad ogaato dhibaatada ku haysata miisaankan ku saaran calooshan weyn aad arkaysid kaliyahan kama imaanin cuntadaada qaldan kaliya ama jimicsi la'aan inay ku hayso bal hormonaadkaaga ya opposite kugu ah waxa dagaal baan kugu hayo hormonaadka jirkaaga ku jiro waxa jirto 4 hormoon oo jirkaaga aad muhiim u ah loona baahan yahay inaad il gaar ah ku fiiriso hadii aad nin raga tahay testosteronka hadii aad dumar tahay estrogenka sidoo kaleetana insulinka iyo cortisolka oo labadeenaba noo dhaxeeya rag iyo dumarba aan testosteronka ragga 2 iyo 3 ka dhaxno ragow hadii testosteronkaaga uu loo yahay faad ma gubi kartid muruq ma dhisi kartid raganimada kale ee caadiga ee hamiga ku saabsanna warkeeda iska daa hadii jirkaaga wax muruqa uusan lahayn ragga si gooni u la hadlaa hadii jirkaaga wax muruqa uusan lahayn wax faada ma gubi karaysid ogowna marka muruqaha ku caafimaad qabaan oo lean muscle-kaaga uu nabad qabo uu bad qabo xataa marka kursiga ku fadhiso oo aad Netflix ka daawanaysid miisaan jirkaaga guwa testosteronkana waa injinka kaliya ee dhaqaajiyo jirkaaga inuu isbedeladaas ku dhaqaaqo low testosteronka waa waxa lulmada dabcan adoo shaqaysanaya maalin walba ku keena oo aad rabto koob iyo 2 iyo 3 qaxwo in aad maskaxdaada ku istaajiso low testosteronka waa waxa lugahaaga iyo gacnahaaga dhuubay caloosha bisna ka soo kuusay kiliyana ku yeelay rag badan oo aan soo wada shaqeynay testosteronkooda le marka aan saxnay oo aan tusinay dabcan wadada testosteronka lagu saxo iyo aamin calooshana meesha way ka baxday murqo qurux badan ay dharka ku xirtaana way sameysteen malabka iyo waxyaabaha la isku qasqaso ee hamiga raganimada laga raadiyo dabcan libidoga ama sexy drive kana meesha uu ka baxay testosteronka sirban kaaga haya oo kor loogu soo qaado ha urdin estrogenka marka dumarka ma ogtaa horto faadka jirkaaga meesha uu ku shubayo jirka estrogenka amarka bixiyo hadii estrogenkaaga imbalance uu yahay jirkaaga wuxuu ku hasban yahay faadka mar walba qaybta dhaxda kaliyaha caloosha inuu ku shubo haduu laakiin balance yahay uu okay yahay muxuu sameeyaa wuxuu ku shubaa thighska iyo hipska dabcan in faadkaaga thighska iyo hipska lagu shubo caafimaad miya maya laakiin jirka inta caloosha lagu shubi lahaa ee caafimaad dara ka imaan lahayd in dhanka lagu shubo ayuu doorbidaa marka uu balance yahay waana ogahay hipska iyo thighska inta badan waxa jeceshiin inay idin weynaadaan calooshana ay yaraato dabcan estrogenka balance ha laga dhigo estrogenku waxa ogaataa high kuma wanaagsano lowna kuma wanaagsano why haduu high noqdo dabcan dhalmadu carqalad geliya
miisaan culus oo qofka saaraa tusaalena waxaa kaaga filan qofka PCOS ka hadduu low yahayna sidoo kale metabolismka low ka dhigaa miisaan oo qofka saaraa tusaalena waxaa kaaga dhiman qofka markuu menopause ku jiro ama dabcan da'da 40ka uu kor u dhaafay marka in la balance gareeyo waa xalkiisa ugu wanaagsan ee qofku jirkiisa wax uga bedeli karaayo sidoo kale insulinta yaaba irdaha u furaba jirkaaga baruurta in uu kaydsado waa furaha kaliya insulinta jirka furaha unugyada inta la furo baruurta meesha wareegaysa dabcan waxaa ka wada galay sokorta jirkaaga soo gashay ama cuntooyinka jirkaaga soo gashay qasabta in unugyadaada lagu kaydiyo sida god qashin oo kaleete ogow insulintaada mar walba waxay ku fiican tahay inay balance noqoto dabcan markuu balance yahay mar walba noloshu way ku helisaa jirkaagana wuu caafimaad qabaa laakiin sidoo kale mar walba uu insulinkaaga qaab resistance uu ku jiro ama uu yahay jirkaaga waxaa ku adkaata in faadka rasmiga ah tamarta ku keedgaraysan laga gubo baruurtaadana ay shaqayso waxa mar walba la isticmaalayana ay noqoto sokorta jirka u keedgaraysan ama waxaan glycogen loo yaqaano inta aan wax kale ku sheegin waa iga talo hadii carbohydrate-ka dabcan cuntooyinkan aan naqaanay briski pastada iyo canjeerada aad iska dhaaftay cardio-gaagana uu badan yahay oo aad u aalamiitayso still uu miisaan ka dhaceynin oo aad aragto jirkaaga wax isbedel inuusan sameyneynin qaybtan adaa lagugu talagalay hormoonadkan hadda aan ka soo wada hadalnay dabcan afartan hormoon cortisolka insulinka iyo sidoo kale estrogenka iyo testosteronka halkan shay xukuma waana waxa aad afka gelinaysid dhageyso waxa laga yaabaa in qado iyo quraac iyo casho aad cunaysay marka aad barnaamijka weight loss ka bilaabaysid laakiin wax yar waxa aragtay bil inay 1 kiilo ama 2 kiilo ka dhacayso cuntadaas coach ku qoro ama meelaha ka soo hel kadibna aad iska dhaadhicisay aad u qayishay aad tira okay 3 waqti wax cunaa kawara hadii aan 2 waqti ka dhigo maxaa dhici karaa yes miisaan badan ka dhacay waa adii sida u fikiraysid 2 waqti cuntada aad ku soo koobto oo aad aragto badalkii weegi hore ama bishii hore ee kiilo ka dhacday wiigan inay 2 kiilo ka dhacday wow waxa dhahday okay hadana waa u qayila labadii waqti markii dambe aad hal waqti ku soo koobto sagxada aad soo daawato kadibna 2 kiilo ay ka dhacdo laakiin gama dambeyn maxaa imaado wax la dhaho plateau weight stack oo ka galo meeshan waxa rabaa inaad ku fahansiyo wax la dhaho metabolic adaptation waxa ogata jirkaaga qaar ahaan metabolismka oo mas'uulka ah jirka tamartiisa inuu banaanka u soo saaro aadna isticmaashay tamartaada wuxuu leeyahay wax adaptation la dhaho la qabsasho mar walba wuxuu la qabsadaa energy-ga iyo tamarta jirkaaga uu heli karo jirku ma yaqaan wax miisaan ridis la yiraahdo jirka wuxuu yaqaanaa waxan ka baxayo inay asaga halis ku tahay anagu wuxuu u arkaa tamar uu luminayo man rabo inuu tamarta lumiyo metabolic adaptation haduu galana wax walbo plateau istaagayaan isbedel ma jiro miisaanna ma ka dhacayo hadda marxaladan ku jirto marka talada ugu fiican oo ku siinayo waxay tahay kow hadda calories kaaga taqaano 200 ilaa 300 ilaa 500 calories kor u soo qaad labo hadii qado quraac iyo casho aad cunaysana ay kugu yara xadidnaayeenna qadada iska soo celi quraacdana iska soo celi bilna isii isbedelka dhaco aniga ila fiiri kadibna commentiga nugula wadaag gabadh waa jirtay clientiga kamida oo meelahan Europe joogta dabcan gaajadana u aragtay xal inay miisaan iskaga rido barnaamijkayga markay soo gashay su'aasha ugu horeysay weydiisay waxay coach ani gaaja miisaan ku soo ridi waay sideerta inaad cuntadan oo dhan aad miisaan igaaga rido guess what wallahi 2 week markuu dhamaaday oo isoo wacd waxay ugu tiray miisaanka si fiican oo iga dhacaa bil markay u dhamaatana oo isoo wacd waxay tiray cuntada iga bedel لأنه أنت بدنا وباهنا because ميزانك ودعا gaajana isku maridaay laakiin ma laga yaabaa in cunto fiican cunayso dadsan cuntada wax ka qaldaneen khaladkan asagana fiiray cardio badan ayaa sameeysaa dad badan waxay aaminsan yihiin the more aad aalamiteeso the more uu dhidid badan ka baxo waa the more uu faadka jirkaaga uu dhaco laakiin saddex qalada dhacdo marka uu cardio-gaaga tirada ka badan marka uu 5 ilaa 6 maalin galaasyadan la boodboodo jimka ka dhex socda aad sameynaysid saddexdan qalad dhacdo murqahaaga yaa dhinta taasoo sababayso in metabolic-gaaga dabcan isagana uu hoos u dhaco murqi haduu dhinto metabolic-ka hoos u dhaco dabcan miisaan ridis ma jirto li'annahu metabolism-ka asaga tamarta banaanka u soo saara asaga tamarta sidaad u isticmaali lahayd shaqadiisa ee tahay haduu crash ku dhaco haduu dhaawac soo gaaro wax ku shaqeynaayo bale labo cortisol-kaaga kor u kacay hormoonkan stress-ka haduu kor u kaco waxa lagu yaqaanaa murqihii aad dhistay caafimaad qabo inta
intuu soo qaado glycogen sokor u bedelo oo kadibna baruur u bedelo iyo wuxuu dhaxdhigaa qaybta dhexda calooshaada iyo kaliya saddexna kaardiyoogu aamin gaajo tiro badan uu leeyahay imise qof aragtay jiim bilaabay baruur iyo cayil ka qaaday si weynaadayba kaardiyooga gaajo badan uu leeyahay waxa soo maray oo ilaahay ila ogyahay dad 7 bari cardio sameeyay laakiin steepkan hadda aan ku soo wado markaan tusay cardiogina way naceen jirkooda wuu qurux badnaaday cuntada tirada badan ee cunayna way ka yaraatay miisaankana si fiican uga dhacay strength training waa arin aan wax wada xaajood ah lahayn 80 jir hadaa tahay 70 jir hadaa tahay 50 hadaa jirto 20 hadaa jirto mahma da'daada strength training waa in jirkaaga wax uun iska caabin uu hela aalmitooyinka gymka lagu sameeyo ee biraha ku tacalluqa hadaarta mashiinada isticmaal adigu laakiin wax uun murqahaaga dhaqaajinaya sidoo kale iska caabin ay ka dareemayaan wad ku qasbantahay ugu mar walba uu murqaaga kobco waa mar walba oo ay faa'iido ku jirto baruurtaada in la gubo yaani waxay dhahaan maasoladu metabolically waa active maasolada iyaga baruurta cuna si af Soomaali ahaan ku fahansiina iyaga baruurta cuna maxaa ka wadaa maasol markaad leedahay oo murqaha jirkaaga iyo dhisiin murqaha ka hadlayna murqaha waa weyn caafimaad darada cirbadaha la isduro ma ahan murqaha waxa ogaata maanta markaad kursi ku fadhiisto ina istaagtaa daaratid murqa ku dhaqaajiya markaad soconaysa murqa ku dhaqaajiya murquhu waa muhiim murqaha markay dhisan yihiinna iyaga ka caawinaya baruurta jirka ku jirto in lagu lagubo waana sababta qofka aan arday ii soo noqday ama ardaydeeda kamid ah aan ugu qasbo hadoo rabo guriga ha ku sameeyo hadoo rabo gymka ha ku sameeyo inay qasab tahay 2 maalin ugu yaraan in jirkiisu biraha ay ku train gareeyaan haddii aad diet fiican ku jirto haddii sidoo kale tana exercise kaaga uu saxan yahay aamin waxa ka maqan motorki dhamaa ee faadka ku dhaqaajin lahaa waana murqahaaga kama dambeyn dabcan videogii aan ku tilmaamay haddaad soo daabatay commentiyadiisa si fiican u fiiri cuntadan hoostaale soddonka bariga qaado isku soo baroobay insha Allah taala haddii aad rabtana barnaamij inta ka dheer oo attention lagu siinaa laga warhaynayana magacaygu waa Coach Sabriye numberkayga sabirka weyn ee wuxuu saaran yahay YouTube-ka laakiin waa kaliya dadka raba inay balan ka qabsadaan barnaamijyadeeda. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.